tani waxay muujinaysaa isu dhawaansho iyo kalsooni dhexmarta shacabka iyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. ciidamadani waxay ka tirsan yihiin guutada 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. deeq lacagood oo ay ka jiraan mushaaradkooda ayay maanta u qaybiyeen in ka badan 200 oo qoysas danyar ah kuwaasi oo ku sugan degmooyinka Boondheere iyo Howlwadaag oo ka tirsan gobolka Banaadir. qaar ka tirsan dadkii ciidankan lacagta ay gaarsiiyeen ayaa kaga mahadceliyay deeqdan lacageed oo ciidanka xoogga Soomaaliya ay soo gaarsiiyeen. weligaan intaan joognay xamar ma arkin ciidan mishaarkiis inta iska soo jaray oo u keenay dadka walaalahooda maana arag waa arrin lagu cusub macnaha farxadii iyo baan tabcaan lanahay waxaan sameynay madaxdii ciidankii oo noo yimid lacagtii noo keenay meesha anoo ku dhibaataysan dhibaatooyinkii aad noo gargaaray mana ciidankaas waxaan u rajaynaa guul cadowgoodana hoos inuu Ilaahay ka dhigo ciidankan kale noo dhimeeyay weligayga ma arag qaasadan ciidanka madaxtooyada gargaarka ay noo keenay ciidankoodii qalabkoodii agabkoodii iyo gaaridoodii ay noo yimideen oo ay noo keeneen halkaas maaragtay aad nagu soo booqteen wax kasta waxa noo qaad booqashada ay noo soo booqteen hadda kaalmada ayna sin Ilaahay waxaan ugu rajaynaa kaalmo kale inta Ilaahay ugu bedelo cadowgooda Ilaahay qab dhalinyarada u hadashay ciidamada maanta lacagta dadkan danyarta siiyay ayaa sheegay in haddii mushaaradkooda joogto laga dhigo inay wadi doonaan kaalmada dadka danyarta Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya maanta maxaan meeshan ka sheegayaa inaan dadka anaga shacabka oo tabaalaysan oo abaaruhu ay ku dhufteen adduunyadoodii in mushaarka aan qaadan hayo oo dhididkayga ah in aniga aan iska jaro oo u jaro dadkaas tabaalaysan kaamka ku dhow madaxtooyada insha Allah waxaan rajaynaynaa haddii mushaarku noo sii socdana waaga hore mushaar saayida ma aan qaadan jirin laakiin hadda mushaarku waa noo bilowday wuuna noo sii socon doonaa insha Allah haddii uu noo sii socdana waxaan meeshan ka sheegayaa mushaarka aan qaadan hayo anigoo ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan u sharaxayo wixii qoonda oo qoondeeyo dadka rayidka Soomaaliyeed inaan u sharayno. Cabdiraxiin Cabdullaahi Honkebel TV magaalada Muqdisho.